Boko Haram ee dalka Nigeria muxuu hogaamiyahan uga dhignaa kooxdaasi iyo waliba da'diisa sidoo kaleete dagaaladii uu ka galay gudaha Nigeria iyo waliba kooxda ay ishayeen ee galbeedka Afrika ogihii ugu dambeeyay iyo macluumaad la xiriira dilka ninkan ayaynu eegaynaa ee ku soo dhawaada warbixinta hogaamiyihii kooxda maleeshiyaadka ee Boko Haram Abubakar Shekau ayaa isdilay sida laga soo xigtay cod ay soo duubeen maleeshiyaad islaami ah oo uu dagaal kala dhaxeeyo kooxdaasi cod ay heleen wakaaladaha wararka kooxda isku magacawday dawladda islaamka ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in Abubakar Shekau uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo uu isagu isku xiray kadib dagaal dhaxmaray labada kooxood bishii hore ayaa la sheegay in Abubakar Shekau uu dhintay halka marar badan oo hore la sheegay inuu geeriyooday dawladda Nigeria iyo Boko Haram toona ma aysan xaqiijinin geerida hogaamiyihii kooxdaasi codka aanan la ogeyn xilliga la soo duubay ayaa waxa loo maleynayaa inuu yahay hogaamiyaha garabka la baxay dawladda islaamka ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay SWAP Abu Mus'ab al-Barnawi oo sheegaya in Abubakar Shekau uu isagu si degdeg ah isku qarxiyay kadib markii uu isku xiray waxyaabaha qarxa dagaalyahanada SWAP ayaa baacsanayay dagaal oogaha isla markaana siiyay fursad ah in uu ka tanaasulo fikradiisa si uu ugu biiro kooxda ayaa lagu yiri codka laga soo duubay al-Barnawi Shekau ayaa doorbiday in uu isagu iska takhluusay intii lagu bahdili lahaa dunida ayaa lagu yiri codka bishii la soo dhaafay markii uu soo ifbaxay warar la isla dhaxmarayay oo sheegayay geerida Abubakar Shekau militariga Nigeria waxa ay sheegeen in arintaasi ay baarayaan Maxamed Yarima oo ah afayeen u hadlay militariga Nigeria ayaa xilligaasi BBC-da u sheegay in militariga ay baarayaan waxa dhacay balse aysan ka hadli doonin tan iyo inta laga xaqiijinayo geerida Shekau wariye xiriir dhow la leh laamaha amniga ayaa sheegay in Abubakar Shekau uu geeriyooday markii kooxda SWAP ay weerar ku qaadeen saldhigyada Boko Haram ay ku lahaayeen kaymaha Sambisa ee waqooyi bari dalka Nigeria haddaba waa kuba Abubakar Shekau Abubakar Shekau wuxuu awoodda kooxda la wareegay markii uu gacanta booliska ku dhintay ninkii aasaasay ururkaasi sanadkii 2009 wuxuu kooxda u horseeday inay weerar dhiig badan uu ku daatay ay ka fuliyaan waqooyi bari dalka Nigeria intii uu hogaaminayay Boko Haram waxay kooxdan fuliyeen weerar loo adeegsaday bambooyin falal afduubaha iyo waliba in xabsiyada ay si xooga uga sii daayaan maxaabiista sanadkii 2014 waxay kooxda bilowday olole ay ku qabsanayaan magaalooyinka si shariicada islaamka ay uga dhaqangeliyaan Abubakar Shekau ayaa la rumaysan yahay in uu jiray da'da 40 wuxuu ka soo dhex muuqanaya muuqaalo uu uga hadlayo ololaha kooxda waxaan ku raaxaystaa dilka sida aan ugu raaxaysto marka aan gowracayo digaagta ama idaha ayuu yiri mar uu ka soo muuqday muuqaal la baahiyay 2012 tan iyo markii uu hogaanka kooxda la wareegay in ka badan 30,000 oo qof ayaa ku dhimatay weerarada halka in ka badan 2 milyan oo qofna ay guryahooda ka qaxeen kooxdan ayaa si weyn looga hadalhayay caalamka kadib markii 2014 ay boqolaal gabdho ah ka afduubteen iskuul ku yaala degmada Chibok ee gobolka Borno waxaana bilowday olole lagu baaday goobaya gabdhahaasi oo in badan oo kamid ah wali ay maqan yihiin wixii xilligaasi ka dambeeyay Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Shekau uu yahay argagixiso caalami ah waxa uuna dul dhigay madaxiisa $7 milyan Abubakar Shekau wuxuu dagaal dhiig badan uu ku daatay uu ka waday waqooyi bari dalka Nigeria in ka badan 10 sano waxaana ka hor yimid ururka la baxay dawladda islaamka ee galbeedka Afrika maadaama uu ahaa nin xaq jir ah haddii la xaqiijiyo geerida Abubakar Shekau waxaa laga yaabaa in kooxda ay soo afjaranto sida ay sheegayaan falanqeeyaasha gobolka kooxda la baxday dawladda islaamka garabkooda galbeedka Afrika ayaa dagaal adag kula jira kooxda Boko Haram dadka qaar waxa ay saadalinayaan in geerida Abubakar Shekau ay horseedi doonto in uu soo afjarmo dagaalkii kooxdan kala dhaxeeyay SWAP taasi oo laga yaabo in dagaalyahanada Boko Haram ay ku biiraan ururka la baxay dawladda islaamka ee galbeedka Afrika halka dadka qaar ay sheegayaan in dagaalyahanada wali ay ku sii dhaganaan doonaan fikradii Shekau marar badan ayaa waxa dawladda Nigeria ay sheegtay in ay dishay hogaamiyaha simayalka adka Abubakar Shekau inkastoo aysan xaqiiqoobin waxa uu ahaa nin mayal adag waxa uu ahaa nin aad u adag waxa uu ahaa nin aad looga yaqaanay Afrika iyo dunida inteeda kale maadaama uu ku soo caan baxay
dilalka iyo weliba dhiigga faraha badan ee lagu daadinayo waqooyi bari dalka Nigeria. sanadkii 2016 militariga Nigeria ayaa sheegay in dhowr qof oo kamid ah madaxda Boko Haram lagu dilay weerar diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria. afayeenka ciidamada dalka Nigeria ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in hogaamiyaha kooxda Abubakar Shekau uu kamid ahaa dadka ku dhaawacmay weerarka kaymaha Sambisa ee halkaasi ka dhacay. Sambisa waa dhul kayma aha oo inta badan saldhig u ah kooxda Boko Haram, halkaasina waxa ay xudun u tahay weerarada ay soo qaadaan ee ay ka fuliyaan gudaha dalka Nigeria. ciidamada Nigeria ayaa horay waxa ay u sheegeen dhimashada hogaamiyaha Boko Haram dhowr jeer. war ka soo baxay xilligaasi dalka Nigeria ee weerarka ayaa lagu tilmaamay mid aan horay loo arkin, wuxuuna ku soo aaday booqashadii xilligaasi ee xoogayay arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku joogay dalka Nigeria. Abubakar Shekau waxa uu ahaa nin aad looga doondoonayay gudaha dalka Nigeria. marka laga soo tago in laga doondoonayo gudaha Nigeria, waxaa sidoo kale Mareykanka uu u aqoonsanaa inuu yahay nin argagixiso caalami ah isla markaana uu madaxiisa dul dhigay $7 milyan ciddii soo disha ama soo sheegta halka uu ku nool yahay ama soo qabata. waxa uu ahaa nin aad looga cabsado gudaha Nigeria. wuxuu hogaaminaya kooxda la baxday Boko Haram oo ah koox maleeshiyad islaami ah kuwaasi oo weerar dhiig badan uu ka daatay ka fuliyay gudaha dalka Nigeria. meelaha ay aadka uga howlgali jireen weeraradana ay ka fulin jireen waxa kamid ah waqooyi bari dalka Nigeria. weeraradooda iyo waliba howlgallada ay ka fuliyeen gudaha Nigeria oo joogto noqday waxa ay ku laayeen kumanaan qof, waxaana ku barakacay malaayiin qof oo reer Nigeria ah. waxay ahayd koox aad looga cabsado oo inta badan ka howlgalaysa gudaha Nigeria. cabsida ka sokow reer Nigeria ay kooxdan ka qabeen sidoo kale dalalka dariska ayaa aad uga cabsan jiray kooxdan inay ku fido iyo waliba inay ku fido qaybaha kale ee galbeedka Afrika. dad badan waxa ay qabaan geerida iyo dilka hogaamiyihii Boko Haram Abubakar Shekau inay soo afjari doonto kooxdan iyo waliba dhaqdhaqaaqii ay ka wadeen gudaha Nigeria, halka kuwa kalena ay qabaan in kooxdan ay wali sii wadi doonto howlgalladooda iyo waliba fikradii uu uga tagay hogaamiyahoodii inta badan soo maamulaya ama soo hogaaminaya Abubakar Shekau. dad badan ismaysan lahayn Abubakar Shekau waxa uu ku bixi doonaa